السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب السودو هذا waxaan hore in kugu ballan qaaday inaan idin soo gudbin doono course kale kaasi oo muhiim u ah dhammaan ardayda ku xiran bulsho academy magaciisu waa Aftax Xuseen Aftax bulsho maanta waxaan idin soo xilay markii aan sameeyay isbarbardhig waxyaabaha muhiimadda ay leedahay iyo heerka uu ka taagan yahay qofka maadadan ama course-kan computer-ka waxa ay soo baxday inay tahay maada aad muhiim u ah aanan ahayn maada la dhayalsan karo maadaama qof kasta uu u baahan yahay aaladda computer-ka taas darteed marka waxaan go'aansaday inaan koorsadan basic computer-ka aan idinla wadaago inta karaankeyga insha Allah taala iyo inta waqtigiisa maxay intaas kadib idinkan aad iyo aad ay u mahadsantihiin sida wanaagsan aad fariimo ay ugu soo direyseen inaan course kale waliba koorsada computer-ka inaan bilaabo dhiirigelintiina iyo inta aad ila soo xiriireyseen waan kaga mahad celinayaa fadlan marka waxaan ka codsanayaa maadaama aniga aan ku dadaalayo markasta hadii la yiraahdo in aad heshaan waxyaabo idin anfici doono xilli hadda la taagan yahay iyo xilli dambaba in idinkan insha Allah taala meel fog ii gaarsiisaan muuqaaladeyda sidoo kalena channelka subscribe laadin saaxiibadiina iyo asxaabtiina dhammaan cid kasta oo ku soo xirteen aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan rabnaa hadii la yiraahdo marka inaan ka hadalno waa maxay computer wax ugu horeeyo qofka markii uu horta uu computer-ka ama maadadan uu bilaabayo course-kan su'aasha ugu horeyso ama wax ugu horeyso la barayo waxa waaye waa magacii computer-ka waxa la in la baro marka waa maxay computer waa su'aasha ugu horeyso ama qofka waxa ugu horeeyo qofka markaasi laga bilaabo computer-ka marka micna ahaan hadii la dhaho computer maxaa waaye computer-ka waa electric device waaye waa aalad koronto ku shaqeyso waaye micna electric device waaye waa aalad koronto ku shaqeyso that allow you kaasoo ku ogolaanayso that allows you ku ogolaanaysa for processing horta inaad process samayso marka before process for input data inaad data aad gelisid computer-kii kadibna processing aad samayso oo macnaha maadada ay process ay samayso an output inay sidoo kale output produce output ay soo saarto output waxyaabihii aad computer-kaada gelisay in ay soo saarto taas waa taas intaas markay kuma ekaanine kadibna storing data xogtiya la keediyay hadda maxaan dhahan computer-ka waa aalad ku shaqeysa korontada dhahnay electric device that allow you kaasoo ku ogolaanayo for input in horta input sameyn kartid oo computer waxaa gelin kartid processing process sameyn kartid xogtii input-ka iyo output-ka inta u dhaxayso processing ay jiro ina ayadana process sameyn kartid oo xogta marka u horeyso ceeriinka tahay marka meesha la geliyo processing lagu sameeyaa kadib output laga soo saaraa okay kadib marka inta output-ka marka laga soo saarana waxa lagu sameynayaa storing xogtii waa la kaydinayaa diskiga loo kaydinaa horta intaas waa si kooban marka la dhaho computer waxa la dhaho waa intaas marka saddexdii aan soo sheegnay oo computer-ka inuu leeyahay input output process inaan dhahnay ay waxaan rabnaa inaan kala qaadno hadda input maxaa la dhahaa input waxa la ustaad waa a piece of computer hardware waa qayb kamid ah computer-ka hardware-ka computer hardware maxaa loo jeedaa macnaha computer software iyo computer hardware waay computer hardware marka loo dhaho ustaad waa shay kasta oo la taaban karo wax kasta oo la taaban karo computer-ka ku jiro hardware la dhahaa mouse ha noqdo keyboard ha noqdo webcam ka noqoto scanner ka noqdo microphone ka noqdo touch screen-ka ama shaashada ha noqoto wax kasta oo la taaban karo waxa waaye waa hardware waaye marka input-ka waxa waaye waa a piece of computer hardware waa qayb kamid ah computer-ka kaasi oo lagu geliyo computer-ka wax lagu geliyo oo maxaa loo jeedaa computer-ka wax lagu geliyo computer-ka qoraal la geliyaa sama codada la geliyaa wax kasta la geliyaa marka maxaa lagu geliyaa waxa lagu geliyaa dhowr qaybood okay keyboard-kii waxba wax lagu geliyaa qoraaladii wax lagu isticmaalaa ayaga waa kaameradii muuqaal lagu geliyaa iyo sawir iyo wixii lagu qaado markaas maxaa dhihi jiray muuskii waxba lagu geliyaa microphone-kii codada lagu geliyaa computer-ka okay kaas ustaad marka waxa la input device la aaladaha wax lagu geliyo computer-ka la kamerada kamid scanner-ka kamid muuska kamid webcam-ka kamid keyboard-ka kamid microphone-ka kamid dhammaan waxyaabahaas ustaad
waxyaabaha waxa lagu geliyo computerka laha okay taas aan taas kaga gudubno computerka sidoo kale wuxuu leeyahay waxa la dhaho output devices output device-ka maxaa la ayagana output device ayagana waxa uu istaad wax kasta oo computerka wixii la geli soo saaro a part of computer waa qayb kamid ah computer hardware-ka asagana kaas oo computerka displays information wuxuu soo bandhigaa xogtii aan gelinay oo ku duubnay computerka ayaa shaashada oo kasoo muujinaya codkii aan ku duubnay computerka ayuu samaacadii codkii kasoo bixinaa ka dhageysanayna codkii muuqaalkii aan gelinay maxaa dhihi jiray computerka ayuu shaashadii naga tusayaa qoraaladii aan meesha aan ku qornay ayaa printerka kasoo daabaceynaa marka maxaa kamid output device-kan waxaa kamid ustaad printerka oo warqadaha lagu daabaco output waaye warqadii gudaha ku jirta kuwa soo saaraya speakerka samaacadda kamid ustaad oo codkii aan ku duubtay microphone-ka ayuu samaacad kaga soo saaraya waxaa kamid sidoo kale waxyaabaa lahay screen-ka ama shaashada ayadana muxuu sameynaya wuxuu kaga soo saaraya screen-kii ayuu wuxuu kaga soo saaraya waxyaabihii halkaas aad gelisay si aad u daawatid intaas waa fahnimo ayadana intaas waxaa la ustaad output device aad u badan tahay waxaa kamid ah projector-ka kale muxuu soo bandhigaa wixii computerka ku jiray headphone-ka dhagiyo codkii soo bandhigaa ustaad kuwaas marka waxaa la lahaa output device la lahaa marka ustaad hadii computerka input wax lagu geliyo output waxa lagu soo saaro process maxaa la dhahaa marka process waxaa la ustaad tusaale ahaan marka aad si physical wax kugu sheego marka aad masaga soo qaadid masagada marka uu horeyso sida caadigeed ku imaatay waaye ama ay ku soo baxday marka soora laga dhigaa waxyaabo laga dhigaa soo ma marka masagada inta qaadid am aad geysid maxaa la jiray meel lagu shiido ama aad geysid makiinada cajiinka aad geysid makiinada wax lagu shiido aad geysid masagadii waxaa lagu shubaa meesha lagu shubaa soo ma meesha lagu shubaayay waa inputkii markii lagu shubo input waaye marka inputka wixii la gashada ayuu outputka soo saaraa soo ma okay outputkiina wuxuu soo saaraa iyadoo shiidan oo markaasi la yaryareeyo intii hore laga yaryareeyay okay haddii marka intii hore laga yaryareeyay oo ayadoo saasa la soo saaray ya inta u dhaxaysa maxaa la marka inta la shiidin iyo markay shiiditaanka noqonaysa inta u dhaxayso ustaad processing-ka waaye waa shaqadii marka computerka saas oo kale waaye input marka wax gelisid inputka aad gelisay waa inuu soo saaraa okay inta si la faana umalena marka waxaa gashato un baad heli waxaad gelin meeleyso marka ustaad input iyo output iyo process-ka waa saddexda computerka ugu muhiimsan wax kasta meel kasta oo computerka lagu weydiina input output iyo sidoo kale process waaye intaasba waa helaysaa marka ustaad intaas marka waa intaas waa inta ugu muhiimsan waxa computer la dhaho input outputna waxa la dhaho ustaado marka intaas waxaan rajeynayaa marka in aan fahanay sidoo kale waxaan rabaa inuu casharka aad u dheeraadana ma rabo waxaan rabaa inaan ka hadlo marka computerka asna qayb uu leeyahay qayba uu leeyahay maxaa kamid ah wuxuu leeyahay hardware waxa la oo ah hadda qaybta soo sheegayno ah hardware maxaa la hardware waxa la ustaad wax kasta oo computerka kamid ah oo la taaban karo hardware allaha software maxaa la ustaad software waxaa la ustaad instructions waa amarada computerka macnaha siinayo inuu shaqadaas qabto ama hardware-ka siinayo inuu shaqadaas qabto data ayaa jirta ayadana datada maxaa la datada ustaad waa xogtii computerka aad gashanaysay oo aan wax micna ku sameeynin tusaale ahaan xogta waa data wax aan micna ku sameeynin waa marka waa wax aan micnihiisa dhamaystiran laakiin marka dhayd shila dhacay meeshaas oo ka dhacay gaarigii noocaas oo ahaa dad inta soo qof wax ku waxyeelooday xog dhamaystirna bixisay laakiin marka tira gaariga shil gala marka dhayd xog dhamaystir ma aha taasna waa physical aan wax ku sheego ustaad taas aydan aan ka socono user ajiro userka marka waxa waay hadii hardware-ka la helo qolofka computerka la helo software-ka uu ku shaqeynayo sida operating system iyo waxyaabo lagu shubayo computerka la helo xogtii computerka lagu shubayna la helo userkii qofka isticmaal lahaan in la helo waa khasab afartaas marka ustaad waxa la lahaa computer system parts of computer system ama qaybaha computer systemka uu ka sameeyay lahaa taas aan aydan ka gudubno computerka wuxuu leeyahay ustaad waxa la lahaa processor waxa la dhaho leeyahay oo CPU وانا قيبت مسكحة الكمبيوتر كواي sidoo kale wuxuu leeyahay ustaad memory uu leeyahay oo asana aad u far badan dhowr nooc kala ah laakiin laba kamid ah soo qaadno waxay jirta RAM iyo ROM waxa la RAM-ka waa dhaqana waa maqal waa random access memory waa RAM ayaa laga soo gaabiyay oo wuxuu ku haynayaa datadii ayuu xogtii wuxuu u haynayaa maxaa la jiray CPU-ga ayuu u haynayaa inta uu shaqada ku jiro marka temporary storage waa asaga marka waa kayd oo temporary ah waay sidoo kale ustaad waxay jirto waxa la dhaho ROM ayaa la jiro asana waa permanent storage laha
oo asagan instructionada wuxuu ahaynaa ama amarada wuxuu ahaynaa computerka si u howlgeliyo ama howsha ugu galo. intaas waxaan filayaa marka storage aad u badan yihiin waxaa kamid ah floppy-ga, waxaa kamid ah drive-ka yarka oo flash-ka ah, optical-ka kamid ah, hard disk-ka kamid ah oo nooc internal oo gudaha ku jira mid external dhamaantoodba ayagana meesha way ku jiraan. intaasba marabna cashirka inuu sii dheeraado waxaan rajeynayaa marka in aan qaybaha kale insha allahu tacaala aan kaga hadli doono hadduu ilaa yiraahdo waxyaaba aada muhiim ah. intaas ayaan kusoo gabagabeynayna cashirkeeni koowaad computer basic-ga tan intaa kulmi doono casharada xiga waxaa idinku dhaafaya nabadgelyo.